Bismillaah. Walaalahayow, waagii hore oo jaahiliyada oo dadku ay gaalada ahaayeen, dumarku sharaf iyo qiimo ma lahayn. Dumarkana waxay u dili jireen laba qaab. Qaabka koowaad wuxuu yahay aabuhu hooyadu markay foolanayso intuu kaxeeyo oo meel cidla la tago ayuu god qodi jiray. Godka markuu qodo wuxuu sugayaa inta hooyadana ay dhalaso. Maalinka markay hooyada dhasho oo ilmihii Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ka keeno ayuu wuxuu fiirinayaa ilmihii ma wiilba mise waa gabar. Haddii uu wiil yahay wuu ku farxayaa, isagoo faraxsan ayuu soo celinayaa. Haddii ay gabar tahayna wuu qaadayaa, godkii uu qoday buuna ku ridayaa ugana soo tegayaa. Qaybta labaad waxay tahay ay ku dili jireen ilmaha ama gabadha ay ku dili jireen waxa weeye gabadhu markay xoogaa soo kobcdo oo soo korto oo 5 jir 6 jir 7 jir 8 jir meelaha noqoto ayuu subaxa ka mid ah kaxeynaya aabuhu god uu soo diyaariyay oo uu mar hore soo qoday buu geynayaa, wuuna ku ridayaa, wuuna soo tegayaa. Diinta Islaamku markay soo degtay oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam la soo diray ayaa gabdhihii waxay yeesheen sharaf iyo qiimo bay diinteena u yeeshay. Gaalada maanta joogtana sidoo kale iyagana gabdhihii way dileen. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdeen sidee gabdhihii lagu dilay? Gabdhihi waa kuwa waa nool yihiin, waa soconayaan, waa shaqaysanayaan, waxbay qabsanayaan. Waxa shaqaysanaya oo soconaya waa qalfoof ee qalbiyan iyo diiniyan iyo akhlaaqiyan iyo shakhsiyan bay u dileen oo diintii oo dhan bay ka fogayaan gabdhihii. Fasahaad bay ku fureen, dhinac walbay ka xumayaan gabdho ka khariibeen. Markaasa waxaa soo baxday gabdho iyaga ka amar qaadan karta, laakiin rabbigii amray, rabbigii abuuray ee sameeyay xataa aan garanayn waxa uu uga baahan yahay iyo waxa uu ka doonayo iyo waxa uu amray. Gabdhow, diintii aad shalay sharaftii iyo qiimaha ku hesheen ayaa maantana sharaf iyo qiimo idin yeelasee iyada dib ugu noqda, iyada barta, iyada ku dhaqma, iyada jirkiina iyo dhaqankiina iyo akhlaaqiyaadkiinu diinta Islaamku ha ka muuqato oo gabdho muslimaada oo xishoonaya oo akhlaaq leh oo Rabbi ku xiran oo qalbigooda Rabbi ku xiran yahay oo mar walba isweydiinaya rabbiga muxuu ku amray mise muxuu ka reebay noqda. Markaasaad sharaf iyo qiimo gaaraysaan, markaasaad la mid noqonaysaan Caaisha bint Abi Bakar iyo gabdhihii saxaabiyaadka ahay oo dhan aad la mid noqonaysaan oo qiimaha ay lahaayeen oo kale aad yeelanaysaan. Laakiin inta aad saa ku jirtaan ha sugana qiimo, hana sugana Rabbi oo raalli idinka noqdo. Assalaamu calaykum.